Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kusoo dhawaada janalka maalmaha. Waxaan idin soo gudbinayaa qiso aad u wanaagsan. Waxaa jiray wiil la yiraa Xamza. Xamza waxa uu ahaa wiil aad u fiican, una dabeecad wanaagsan. Nasiib darro, Xamza waxa uu ka dhashay qoys faqiir ah, laakiin Xamza waxa uu haminayay weligiis in uu noqdo dhakhtar. Faqrinimadiisa ma aysan hor istaagin in uu hamiyo inuu noqdo dhakhtar. Xamza markii la gaaro xilliga fasaxyada iskuulka, waxa uu iibin jiray dhar, isagoo ku iibin jiray magaalada gudaheed iyo banaanka. Maalin maalmaha ka mid ah, asagoo joogo meel ka baxsan magaalada oo tuulo ah, ayaa waxaa qabatay baahi aad u daran, mana uu haysto wax uu ku iibsado cunto. Kadib waxa uu go'aan ku gaaray in uu gargaraaco guri u dhow si uu u weydiisto cunto. Gurigii waxaa albaabka ka furtay gabar aad u qurux badan. Xamza waa uu ka xishooday gabadha in uu cunto weydiisto. Markaa ayuu ku dhahay, waxaan u baahanahay biyo. Gabadhuna waxa ay ahayd gabar aad u caqli badan. Waxa ay dareentay wiilka in uu baahan yahay, waxa ayna u keentay cunto iyo koob caano ah. Xamza markii uu cunay oo uu ka dhargay ayaa waxa uu dhahay, meeqo ayaan ku siiyaa? Gabadhii waxa ay ugu warceliday, hooyaday ma aysan na barin in aan wanaagga ku bedelano lacag. Xamza wuu u mahadceliyay, wuuna ka soo tagay. Muddo kadib, Xamza waxa uu gaaray hamigiisii ahaa inuu noqdo dhakhtar. Waxa uuna ka shaqo bilaabay isbitaalka ugu weyn magaalada. Muddo kadib ayaa waxaa dhacday in ay xanuunsato gabadhii, waxaana haleelay xanuun aan la garanayn. Dhowr dhakhtar ayaa loo geeyay, waxna way ka qaban waayeen xanuunkeeda. Markii dambe waxaa la keenay isbitaalka weyn ee magaalada oo uu dhakhtar ka yahay Xamza. Xamza markii uu maqlay in la keenay gabar tuulo hebel ka timid, waa uu u degdegay. Waxa uuna xaqiijiyay in ay tahay gabadhii tuulada ku siisay quraac asagoo baahan. Xamza waxa uu bilaabay in uu la tacaalo gabadhii. Ilaahay xamdigii, Xamza gabadhii waa uu daweeyay, sidoo kale waxa uu ka bixiyay wixii qarashaada ee ku baxay. Gabadhii markii ay caafimaaday ayaa waxaa loo geeyay warqad ay ku qoran tahay, qarashaadka waxaa lagaaga bixiyay quraaca sadaqaysatay awgeed. Asxaabta ku xiran janalka maalmaha, waxaan ka codsanaynaa in ay subscribe saaraan janalka Talo iyo Xikmad. Janalka Talo iyo Xikmad waxaad ka faa'iidi doontaan talooyin iyo xikmado cajiib ah. Sidoo kale waxaad ka helaysaan qisooyin